السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ شريف شيخ أحمد مدحويني هوري الصومالية ميو أتنازلي دونا حسن شيخ مس حسن شيخ أيا أتنازلي دونا شيخ شريف شيخ أحمد. هذا موضوع أرنتاسي ku saabsan iyo khilaafka labada dhinac u dhaxeeya ayaa aad u sii xoogeystay iyo xogo kale oo soo kordhay ayaan rabaa inaan halkan idinkula wadaago. waxaase marka hore idinka codsanayaa in aad sii gudbisaan muuqaalkeena haddii aadan ka mid ahayn inta nagu xiran inaad nagu soo biirto si aan u gaarno yoolkeena iyo hadafkeena. labadan dhinac ayaan ka hadleyno ee kala ah Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii dowladii ku meel gaarkeed ee Soomaaliya haddana ka mid ahaa tartamayaashii doorashadii ku soo baxay Xasan Sheekh Maxamuud lana ogyahay in dalka xilli adag uu ka soo saaray doorasho uu qabtay lana dagaalamay kooxahii xilligaasi ka dagaalamayay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho isaga oo xiran tuutaha militariga oo ka soo muuqday dagaalo badan oo ka dhacay gudaha Muqdisho iyo furmo badan. haddaba marka laga hadlayo arrimaha siyaasadda waa laba dhinac oo miisaan ku leh. dhinaca siyaasadda Soomaaliya waa Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud. ha yeeshee labada mas'uul ayaa xilligan waji ahaan siyaasad ahaan isku fiicneen oo waa ay kala socdaan. haddaba Xasan Sheekh Maxamuud waa madaxweynaha dalka wuxuuna ku soo baxay doorashadii ka dhacday dalka ee Xasan Sheekh Farmaajo Sheekh Shariif Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo xubno kale ay ka qayb galayeen waxaana la arkayay Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo u kaambeyn gareynayo Xasan Sheekh si uu doorashada ugu soo baxo meeshana looga saaro Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo xilligaas siyaasad ahaan ay ku kacsanayeen. haddaba su-aasha waxay tahay Xasan ma u hambeeyey oo ma u abaalguday Sheekh Shariif Sheekh Axmed? haddaba dad badan waxay qabaan in Xasan Sheekh uusan u abaalgudin Sheekh Shariif Sheekh Axmed ha yeeshee ay sii kala fogaadeen tan iyo markii xafiiska uu fariistay. Xasan Sheekh wuxuu ku sugan yahay gobolka Shabeellaha Dhexe wuxuuna dhowr jeer uu tagay deegaano iyo degmooyin uu ka soo jeedo. Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii dowladii ku meel gaarkeed ee Soomaaliya oo xilligan wax dhaqdhaqaaq siyaasadeed iyo mid dagaal iyo abaabul uusan ka socon maadaama la ogyahay in markii hore abaabulka uu wada Sheekh Shariif qayb uu ka lahaa isla markaana cudud ciidan iyo dagaal ay soo bandhigeen meelo badan ay qabteen. ha yeeshee xilligan uu ka aamusay arrimaha siyaasadda iyo dagaalka garabkii bila Soomaalina uu ka baxay. haddaba labada dhinac ayaa isku haya arrimaha awood qaybsiga ciidamada iyo sidoo kale qaabka loo hagaayo doorashada dalka ka dhacaysa 2026 hadduu Ilaahay na gaarsiiyo. dad badan ayaa isweydiinaya oo adiga ka mid tahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed ma u tanaasuli doonaa howlgalka socda iyo Xasan Sheekh Maxamuud si guud ahaan dalka loo qabto mise Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tanaasuli doona oo u tanaasulaya Sheekh Shariif Sheekh Axmed si dalka loo qabto looga shaqeeyo masiirka ummadda Soomaaliyeed dalkana loo geliyo doorasho wada ogol ah oo siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed ay raali ka wada yihiin. adeeg ahaan siday kula tahay qaybta hoose ugu reeb sidoo kalena sii gudbi maxaad leedahay labada dhinac khilaafkooda waa lagu soo afjari karaa mase mudan yahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed in la gacan bidixeeyo isagoo ka qayb qaatay soo bixitaankii Xasan Sheekh Maxamuud iyo dadaaladii uu sameeyay maadaama uu u muuqday mid ka haraayo doorashadaasi xilligaasina Farmaajo ay rabeen inay meesha ka saaraan. haddaba labada dhinac yaa kula qaldan qaybtaas hoose ayaan ku falanqeynaynaa. mar kale waxaan ku leeyahay soo dhawow siina gudbi muuqaalkeena. Assalaamu calaykum.